Wiil ayaa u kaxeeyay aabihiis oo waayeel ah mid ka mid ah maqaayadaha ugu tilmaaman uguna cuntada macaan magaalada si ay halkaasi uga casheeyaan. Xal uu aabuhu yahay mid tabar daran oo gacantiisu aysan xoog badan lahayn. Haddaba markii ay gaareen goobta cuntada oo ay raashinkii u fadhiisteen, ayaa waxaa dhacday in aabihii uu cuntada iskaga hadleeyo dharkii uu xirnaa, taasi oo sababtay in dhammaan dadkii maqaayadda ku jiray ay milicsadaan aabbaha maadaama uu awoodi waayay inuu cuntada jirkiisa ka ilaaliyo. Inkastoo aabbaha ay xaaladda ku xun tahay, haddana wiilka waxa uu si tartiiba ula socday gacan-qaadka aabihiis, isagoo aan wax ficil ah ka geysan arrintaasi. Waxa uu sugay ilaa inta aabihiis cuntada ka dhammeeyo, kadibna intuu gacanta ka qabtay ayuu ula dhaqaaqay musqusha, gacmaha ka dhaqay, afka iyo wejiga ka masaxay, sidoo kale nadiifiyay dharkiisa, dibna ugu soo celiyay fadhigiisa si degganaan iyo naxariisba ay ku dheehan tahay. Wax yar oo nasiino ah dabadeed, wiilkii intuu qabtay gacanta aabihiis ayuu ula dhaqaaqay maqalkii lacag bixinta, iyada oo dhammaan dadka maqaayadda gudaheeda ku sugan ay wada daawanayaan. Si kastaba ha ahaatee, wiilkii markii uu qarashkii bixiyay ayuu aabihiis qunyar ula socdaalay goobta baabuurta ay ka baxaan, si ay dib ugu noqdaan gurigoodii ay ka yimaadeen. Wiilkii waxa uu baska kula kulmay mid ka mid ah raggii ay maqaayadda wada joogeen markii uu aabihiis la cuntaynayay, kadibna waxaa dhex martay sheeko iyo su'aalo, iyada oo wiilkii lagu yidhi, "Ma ogtahay inaad maanta wax fiican kaga tagtay maqaayadda?" Wiilkii ayaa ku jawaabay, "Maya, wax aan ka tegay ma jiraan. Miiska cuntada waan nadiifiyay, wax kastana waxaan ka dhigay sidii ay goor hore ahaayeen, waana hagaajiyay." Ninkii intuu qoslay ayuu wiilkii ku yidhi, "Wallaahi waxaad ka tagtay cashar muhiim ah oo ka tarjumaya waalidka oo baari loo noqdo, loona ixsaan falo marka ay gaboobaan. Waxaad tusaale fiican u tahay kuwa ku liibaanay adduunka iyo aakhirada, isla markaana ay jannada u jirto keliya inta uu ka geeriyoodo." Waa qalinkii Ustaad Gaarane Dufle. Haddaba saaxiibayaal, waxaa jira sida aan la wada soconno dad fara badan oo maanta waalidiintoodu nool yihiin, balse aan u ixsaan falin, dayacay ama si xun ula dhaqma Allaha soo hadeeye. Sidoo kale waxaa jira kuwa ku shalaaya, yaa mar uun dib u soo celiya waalidiinteennii geeriyooday. Aan ka faa'iidaysanay fursadihii aan dayacnay. Waalidku waa furaha jannada. Muuqaalkan waa cibro qaadasho, waana wacyigelin guud inoo sheer gareeya.